بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن بعد السلام وقرنتي وحنو ماد علينا يا الله سبحانه وتعالى. إن مركز حتوان سوى كل ماد علينا يا البلشة كحر يوتيوب channel كيجا يوولي بإن فيسبوك بيج كيجا ومركز المقالة ذني تحناها هاي عفمات كبلشة أو يعني تضبط كان كجاه للدونو إن بروتين سبلمنتيجا نوعيد ذاك الدوين habka loo doorko nooca aad isticmaali kartid ama kuga haboon xadiga laga doonayo maalintii inaad qaadatid xilada ugu wanaagsan ee la qaato kee loo ogol yahay ama loogu talgalay inuu qaato in protein supplementiga maxay ku kala duwan yihiin proteinada gisaysan iyo proteinka cunooyinka laga helo waxa kaloo ka hadli rabaa in proteinka caafimaadka ma u wanaagsan yahay mise intaba mid ayaan uga hadli doonaa in hadii uu aaba yiraahdo inta aan u gudgalin in protein supplementiga وقرنتي waxaan rabaa inaan wax idin kaga sheego in borotiinka waxa uu yahay borotiinka waa nafaqada ugu muhiimsan oo u baahan yahay in jirka bini'aadamka wuxuu ka sameeysan yahay in amino acid ka aad ayuu muhiim noogu yahay maxaa yeelay in qaybaha ugu weyn in unugyada jirkeena iyo murqaha waxa dhiso in amino acid sidoo kale wuxuu muhiim u yahay in dhisida murqaha marta jirka dadka doonaya inuu miisaankooda in kordha intaba muhiim ay u yahay amino acid ka waxa loo qaybiyaa in laba qaybood oo waaweyn non essential amino acid iyo essential amino acid ka jirkeena awood uma lahan inuu sameesto maadaama uu jirkeena uu sameeysan karin wuxuu ka helayaa cuntooyinka borotiinka leh aan cunno ayuu ka baxsanayaa waxaana kamid ah marka valine lysine iyo histidine ayaa kamid ah waxa kale oo jira non essential amino acid yani noocan jirkeena uu sameeysan karaa waxaana kamid ah alanine iyo glycine ayaa kamid ah xagee laga helaa marka borotiinka cunooyinka borotiinka laga helo waxa loo qaybiyaa in laba qaybood oo waaweyn ayaa loo qaybiyaa cunooyin ay u dhameystiran yihiin borotiinka ay u dhameystiran yihiin oo ay ku jiraan essential amino acid guud ahaantooda ay ku jiraan waxaana kamid ah cuntooyinkaas ukunta jeeska digaaga cunooyinka badda laga soo saaray gaar ahaan kalluunka sidoo kale digirta iyo looska iyo hilibka cas gaar ahaan hilibka idaha iyo lo'da iyo cunooyin aan u dhameystirnayn borotiinada oo ay ku jireen amino acid aan ku jirin waxa kamid qudaarta cagaaran ayaa kamid ah murqaha jirkeena waxa loo qaybiyaa in saddex qaybood ayaa loo kala saaraa cardiac smooth iyo skeleton muscle yani midka dadku ay dhistaan ama xilliga gymka weynaada waa skeleton muscle ka waaye xilliga gymka ama murqaha aad dhisanaysid murqahaaga laba arin ayaa ku dhaca arin koowaad murqahaaga waxay dib u cunayaan glycogenka ku kadsanaay glycogenka wax kale ma ahan cunooyinka aad maalin walba cuni jirtay carbohydrate maalin walba aad cuni jirtay cunto marka jirkaaga maalintaas inta u baahanay kaliya ayuu ku cunayaa inta soo har uu kaadsanaya si hadhow markuu jirka baahi u qabato oo dib u isticmaalo marka inta jirka u kaadsaneed ayaa waxa loo yaqaanaa glycogen xilliga gymka marka kaadkaas ayaa dib u isticmaalaysaa arinka labaad oo jirkaaga ku dhacayo ama murqahaaga ku dhacayo waxa weeye murqahaaga dhaabac fara badan ayaa soo gaaraya xilligaas ma ahan marka in murqaha aad dhisaysid laakiin dhaawac fara badan ay soo gaarsiinaysaa marka waxa waajib ah inaad qaadatid borotiin si murqahii dhaawac soo gaaray recovery ay ugu sameeysid sidoo kale energy ay u heshid si murqahaagii ay u dhismaan xaddi intee leeg ayaa laga doonayaa marka inaad qaadatid maalintii waxa qaadanaysaa inta u dhaxayso 0.8 ilaa iyo 1.5 ayaa qaadanaysa halkii kiilo jirkaaga tusaale ahaan haddii miisaankaaga uu yahay 65 kiilo waxa lagu dhufanayaa marka 0.8 ayaa lagu dhufanayaa marka waxaan qaadanaysaa 52 gram ayaa maalintaas oo dhan ayaa qaadanaysaa suuqyada marka aado waxa ku arkaysaa noocyo kala duwan ee protein supplement ayaa ku arkaysaa sida weight gainer protein bar protein powder iyo ready to drink protein shake meal replacement iyo beef liver tablet ayaa ku arkaysaa marka intaba mid sidee ugu xulanaysaa marka midka kugu haboon ama aad isticmaali kartid haddii aad doonaysid inaad miisaankaaga kordhisid waxa isticmaalaysaa weight gainer ama protein bar ayaa isticmaalaysaa laakiin waa in ay ku badan yihiin calories badan inay lahaadaan ayaa loo baahan yahay sidoo kale haddii aad tahay qof buuran aad doonaysid inaad miisaan iska dhinto xilliga gymka waxa isticmaalaysaa meal replacement powder ayaa isticmaalaysaa maxaa yeelay calories badan ma lahan sidoo kale haddii aad doonaysid in murqahaaga aad dhisid ama miisaan aad isku dirtid waxaad isticmaalaysaa protein powder ayaa isticmaalaysaa sidoo kale waxaa jira beef
liver tablet ayaa jiro. kan wuxuu kaa saacidayaa borotiinka aad ka heli lahayd beerka lo-da. aad ayuu muhiim kugu yahay borotiinkan. marka guud ahaan borotiinka waxaa ka eegaysaa markaad iibsanaysid in uu yahay pure protein inuu yahay, oo ay ku yar yihiin fatiska, sokorta iyo cholesterolka inay ku yar yihiin. fatiska, saturated fatiska asiga inuu ku badnaado ma loo baahno, waa 5 ilaa 10 gram inay ku jiraan ayaa loo baahan yahay. sidoo kale cholesterolka asigana 100 milligram inuu ka bato looma baahno. sokorta markaa uu maanane 30 gram wax ka yar ayaa loo baahan yahay. markaa eedkid weight gainerska qualitygiisa aad u fiican yahay. markaa xagga dambe ka akhrisid sokortiisa wax ka yar waa 10 gram wax ka yar ayaa ku jira. waa in ay ku jiraan guud ahaan essential amino acidka. waa amino acidka aan jirka aan samaysan karin guud ahaan, maadaama jirka uusan heli karin uu awoodin inuu samayso borotiinkaas. waa in ay ku jiraan waaye. maxaa ka mid ah marka? tryptophan ka mid ah, isoleucine, leucine iyo threonine ayaa ka mid ah. sidoo kale haddii uu yahay weight gainer, hadduu yahay waa in ay calorieska ay ku badan yihiin oo ay ku jiraan carbohydrateska waa inaysan ka maqnaanin, vitaminska, sidoo kale borotiinada noocyadooda kala duwan, mineralska guud ahaan in ay ku jiraan ayaa loo baahan yahay. yaa isticmaali kara ama yaa loo ogol yahay marka in uu qaato? kuwa doonaya in murqaha ay dhistaan, sidoo kale dadka sportska sameeya noocyadooda kala duwan sida orodka, maxaa yeele waxay u baahan yihiin borotiin dheeraad ah ayay u baahan yihiin. sidoo kale waxay ka helayaan energy ay ka helayaan, murqahooda wuu koraya, jirkooda si wacan ay u shaqeynayaan. sidoo kale dadka doonayo in miisaanka ay iska dhimaan ama dadka miisaankooda uu yar yahay doonayana in miisaankooda ay kordhiyaan, waxay qaadanayaan weight gainer ayay qaadanayaan si miisaankooda u kordho. borotiinada waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood ayaa loo qaybiyaa, kuwa fast digestion protein iyo slow digestion protein. fast digestion proteinka wax kale ma ahan, borotiinka isla markaa cuntid degdeg ayuu jirkaaga iyo murqahaaga ku gaaraya. slowgan waxaa way waqtigu qaadanaya, qulqulka dhiigoo si tartiib uga soconaya. marka xilliyada ugu wanaagsan ee la qaato borotiin supplement ayaan wax ka sheegi doonaa. aroortii hore markaa hurdada kasoo toosto, maxaa yeele xilligaas murqahaaga iyo jirkaaga aad ay u baahan yihiin. waxay u baahan yihiin marka borotiin badan ay u baahan yihiin. marka xilligaas waxaa lagaa doonayaa inaad qaadatid borotiin isku dhaf ah. fasting iyo slowga inaad qaadataa lagu baahan yahay, kuwa degdeg jirka ku galaya iyo kuwa waqtiga qaadanaya. tusaale ahaan whey proteinka wuxuu ka mid yahay borotiinada degdeg jirka ku gala. waxaa la qaadanaysaa marka ukun ama cheese ayaa la qaadanaysaa. sidoo kale waxaa la qaadan kartaa ukuntii waxaas hadaan helaynin casein powder protein ayaa la qaadanaysaa. asiga wuxuu ka mid yahay slow digestion protein, waa degdeg jirka kuma galayo. sidoo kale inta aadan gymka aadin cunooyinka aad qaadanaysid waxaa la qaadanaysaa slow digestion proteinka ayaa la qaadanaysaa, sida casein powder proteinka ayaa la qaadanaysaa. maxaa yeele xilli inta birta aad sidid waqtigaas badan 1 saac ama 2 saac aad miitaynaysid, si tartiib jirkaaga inuu u galo ayaa loo baahan yahay. sidoo kale markaa kasoo baxdid sida subaxdii oo kale aad samaynaysaa, borotiin isku dhafan ayaa qaadanaysaa. slow iyo fasting waa isku darsanaysaa. cuntooyinka dhexdooda iyana waxaa qaadanaysaa slow digestion proteinka. habeenkii markaa seexanaysid waxaa qaadanaysaa slow digestion protein, maxaa yeele habeenkii dhan intaad jiftid si tartiib inuu jirkaaga u galo ayaa loo baahan yahay. borotiin supplementiga caafimaadka ma u daran yahay mise borotiinka caafimaadka ma saameynayo, laakiin waxaa ogaataa wax walba xadkooda la dhaafiyey dhibaato ayay leeyihiin. haddii aad qaadatid xaddi badan oo borotiin ah, inta lagaa doonayo maalintii in ka badan borotiin ah, dhibaato ayuu kuu geysan karaa oo wuxuu dhaawac gaarsiin karaa keliyaha iyo beerka ayuu dhaawac gaarsiin karaa. sidoo kale borotiinka badan wuxuu isku bedelayaa fats, jirkaaga baruur fara badan ayuu yeelanayaa. sidoo kale calciumka jirkaaga ku dhamaanayo, saxradaadana waxay noqonaysaa saxro adag ayay noqonaysaa ama constipation ayaa dareemaysaa. marka meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walbo aa jeceshaa in muuqaalkan uu ka faa'iidaysto. share garayna ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteeda, fadlan subscribe dheh youtube channelkayga, sidoo kale like dheh pagekayga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo cashir cusub aan goordhow soo gelin doono. wixii su'aalaha iyo cudurro aad doonaysid inaad kasoo hadlo waxay ugu soo diri kartaa